sanad kasta marka la gaaro bisha Rabiicul Awwal waxaa meelo badan oo Soomaaliya ah laga xusaa xuska dhalashada mawlidka nabiga nabadgelyada naxariiso kolkiisa ha ahaatee taasoo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awwal oo ah maalintii uu dhashay suubanaheena Maxamed nabadgelyada naxariiso kolkiisa ha ahaatee halkan waa deegaanka Baraagaha Qol ee gobolka Highland waxaana bulshada deegaanka ku nool culimada diinka iyo madaxda dhaqanku ay si wada jir ah u weyneeyeen xafladda xuska dhalashada mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xilli hore oo saaka ah ayay bulshada deegaanka culimada diinka iyo madaxda dhaqanka deegaanku waxay socod dheer ku soo mareen gudaha deegaanka Baraagaha Qol halkaas oo ay ku weyneynayaan xuska xafladda dhalashada mawlidka nabiga nabadgelyada naxariiso korkiisa ha ahaatee dhammaan culimada diinkii iyo bulshadii ka hadashay xafladda mawlidka nabiga ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay maalinta tan u leedahay bulshada islaamka sidoo kalena waxay ka sheekeeyeen siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay uu inaamray inaynu rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi weyneyno una heelino kabacdina faa'iidada aynu ka helayno ay inoo sheegayso diinta ilaahay quraankiisa wuxuu ku yidhi caza wajalla فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين دولك آمنوا النبي محمد رميي وعزروه وينيي ونسروه أهيليي واتبعوا النور الذي نور كي راعي أنزل معه معيسى لسودجيي أولئك كوا سدايا النبي قد وينيي أهيليي راعي نور كي النبي محمد لسودجيي أولئك كوا سورون مفلحون كوا الليبان وي الدنيا آخرة كوا الليبان وي سيدا أوجد ما دام إنه الليبان إنه وحينو هانا يصدقن إيو جوكتو اللهم صل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بإلهي سبحانه وتعالى قفكي وينية علامات كالدين وحي الدين إلهي علامات الله قفكي وينية وينين تاسو وحي كم تاي عبسيد قلوبته روحي شرفت كم وغنيسو waxaa lagu soo dhaweynayaa tacdiimintii calayhi salaam nebi maxamed waa maalin weyn waxaanu leenahay shafaacadii nebi maxamed ilaah waa naga qadin wax kale oo aan ku daraynaa hadda ma jiro waa macaalimta islaamka calaamadaha waaweyn oo islaamka ayuu ka mid yahay mawluudku waa dhalashada nebi maxamed waxa la weyneeyaa dad bini aadan oo aan kitaab sheegin oo bini aadam ah ilmo dhashay qof isima qof kale qof dad ku soo kordhay weynaynta la weyneeyaa bini aadamka kaleba waa ka dhacdaa oo wax lala yaabo maaha dadkii ka soo qayb galay waa ku mahadsan yihiin hadday yihiin salaadiin hadday yihiin madax hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin ururka haweenka dhammaantood in allaale intii ka soo qayb galay aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin maanta aanu la farxayno muslimiinta dhammaan meelaha daafaha adduunka ay joogaan caalamka oo dhan oo ixtifaalkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa maanta aanu dhigaynaa bisha Rabiicul Awwal 12keeda meel walba oo caalamka lagu dhigayana aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa bulshada Baraagaha Qol ee ka soo qayb gashay xafladda nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu ku bixisay muruq iyo maalba waa maalin weyn waa maalin taariikhiya waa maalintii nimcada islaamka la soo dejiyay oo Ilaahay u dhaliyay waa nabiga nimcada calayhi salaatu wasalaam iyo saanimadka iyo jannada lagu galayo waxa loo baahan yahay adduunka inaan dacal ka raacno sidaas oo kale ma sha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin adduunka dacaladiisa ayaa laga mahadnaqayaa oo Ilaahay loo shukrinaqayaa diinta barakaysan Ilaahayna siiyay sidaa daraadeed macallimiinta magaalada beledka degan iyo ardadooda haweenka odayaasha dhammaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda deegaanka Baraagaha Qol ee gobolka Highland